saddex geesood ah oo looga hadlaya arrimaha biyaha webiga Abay ayaa Addis Ababa ka furmay. Wadamada Itoobiya, Suudaan iyo Masar ayaa kulan saddex geesood ah oo looga arinsanayo howlaha la xidhiidha qoondada isticmaalka biyaha Niil iyo heerka biyaha mashruuca Abay la gaarsiinayo ayaa xarunta Itoobiya ee Addis Ababa ka furmay. Kulanka saddex geesoodka ah ayaa ah kulankii afraad iyo wadaxaajoodkii ugu dambeeyay ee la qabtay tan iyo intii wada hadalada arrimaha isticmaalka biyaha webiga Niil dib loo furay. Sidoo kale wasiirka biyaha, waraabka iyo tamarta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa sheegay in ajendaha ugu weyn ee kulanka saddex geesoodka ah diiradda lagu saarayo uu yahay sidii isfahan looga abuuri lahaa arrimaha aan ilaa hadda heshiiska laga gaadhin ee cadadka wadamadu ku yeelanayaan biyaha la sii deynayo xilliyada abaaruhu jiraan iyo weliba heerka biyaha mashruuca biyo xidheenka Abay la gaarsiinayo. Wasiirka biyaha, waraabka iyo tamarta ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Injineer Salasha Baqale oo arrimaha isticmaalka biyaha Niil Itoobiya u matalaya ayaa cadeeyay in Itoobiya doonayso in wadaxaajoodka lagu soo afjaro hanaan wanaagsan oo wadamada dooxada Niil oo dhan ay biyaha Abay uga faa'iideysan karaan. Dhiggiisa dalka Masar Dr. Maxamed Cabdalla ayaa isna dhankiisa tilmaamay in wadamada Masar ay tahay wadan ay biyo la'aan badani ay ka jirto ama ay haysato oo ay doonayaan in muranka ka jira isticmaalka biyaha Abay lagu maareeyo qaab aan dalkiisa Masar dhibaato hor leh u horseedeen, isla markaana ay soo bandhigayaan fikirro xal waara keenaya. Madaxa kooxda wadahadalka arrimaha biyaha webiga Abay ee dalka Suudaan Professor Yaasir Cabbaas ayaa isna dhankiisa sheegay inuu dalkiisu doonayo in howlaha isticmaalka biyaha Niil lagu saleeyo natiijada daraasaadka ay kooxda cilmi baadhistu soo dejisay. Dhanka kale, shirkan ayaa waxaa goobjoogayaal ka ahaa wakiilada dowladda Afrika iyo Bangiga Adduunka.